waxaana wanaagsan idil ahaantiinba waa mar kaliya barnaamijkeeni gungaar. barnaamijka gungaar waxaan ku dul istaagaynaa shabakad u qaabilsaneed al-shabaab soo gelinta qaraxyada muqdisho oo ay burburiyeen sirdoonka Soomaaliya ee NISA. shabakadan waxaa lafdhabar u ahaa xasan macalin bare xasan boy oo 22 jir ah iyo sayid cali aadan nuur steamboy oo abti u ahaa xasan, waxaana labadooduba ay ahaayeen rag aad u isticmaala balwadda noocyadeeda kala duwan, kuwaas oo shilimaad ay ku qayilaan ku bedelan jiray inay gawaari qaraxyaha soo geliyaan magaalada muqdisho si loogu xasuuqo shacabka. xasan macalin bare waa wiil dhalinyaro oo ay noloshu ku adkaatay kana saaqiday waxbarashada, waxaana uu kaga tegay fasalka afraad ee dugsiga hoose. iskuulha wataga almagan afraad gaar kadib ka bax. shaqadii ugu horeysay oo qabto waxay noqotay inuu awowgiis dukaan u gado, balse markii uu dhintay waxa uu bilaabay xalwo karin. aniga markii hore asalkeeyaba wax ku shaqay dukaan gadi jiray, awowgay dukaan gadi jiray. awow markuu dhintay shaqadii waxay noqotay xalwo karis. inta xalwan kari jiray, xalwadii aynu waxaan ku kari jiray magaalada marko. kadibna waxa uu xasan u soo wareegay duleedka muqdisho, halkaas oo uu ku iibin jiray dukaan ay leedahay qof dumar ah, isagoo ka qaadan jiray qadar dhan $2 maalinkii. dukaan waxa iska leeyahay xawlad u karnaa iska dukaankii aan gaday aniga gabadha isku aan dukaanka ka tagay. dukaan waxaan ku qaaday jiray gabadha maalintii ay siinaysa mar $2 mar $3 siinaysa. isagoo dukaanka ka shaqaynaya ayay salaan abtigiis oo ku dhiirageliyay inuu isaga tago dukaanka, isagoo u sababeeyay inaysan mudnayn dumarka in loo shaqeeyo, wuxuuna aqbalay in abtigiis uu og yahay inuu al-shabaab yahay uu kala shaqeeyo falalka argagixisanimada. markaan dukaanka ka tagay adi wax uma dhahayn barnaamijkaana faraha la galay. waalid horta wiilkiisa mutaar dayaca Sambir markuu uu arkay gaajideeda iyo waxaas markuu uu arkay oo wuxuu u yiri dukaankaas iska dhaaf, dukaankaas iyo barnaamijka iska dhaaf uu yiri naag maalkeeda in wax jir ma ahan. ase ahaatee aniga maxaa lahaa asiga wax ku siinaayo aniga masuuliyadda qaadayo. xasan abtigiis oo doonayay inuu helo qof dhalinyaro oo ka caawiya falalka argagixisanimo, waxa uu markiiba bilaabay inuu u diyaariyo shaqooyinkii rasmiga ah ugu talagalay, taasoo ahayd inuu ka caawiyo geynta gaadiidka qaraxyada goobaha dadku ku badan yihiin. waxa uuna u diray goob lagu barto wadista gaadiidka oo ku taala halka loo yaqaano tabeelaha ee duleedka muqdisho, halkaas oo uu 5 maalin ku baranayay wadista gaadiidka. أصير معنا وحوي يعني باور معنا واسمه تقانا ما أنا باور واسع عندي ما أخاني مركز ومركز ويجي باور معنا باور واسع أنا وحنا معنا كفلا أنا وحوي دربلا هاي باور هاي لكرنا أنا قوة شخصنا بسيط بيلك أوكله أنا وديت الرباس أو شخص تال الرباس ده أنا اللي ما بحكي سوي تلقى أنا اللي ما بحكي سوي حصل هذا وده أتشخ ما يصير باور وتانك فائديسو. اوكي اريد ديار واي باورتي marka waxaan ku galay aan ku shaqeysan doono باور tabeelaha aan ku bartay macna baawrta. okay tabeelaha macna baawrta oo loo kiriyaa mowti oo loo kiriyaa baawrta wareegi $1 waay. baawrta macna meesha ku waday wareega soo gelinay $1 waay, wareega soo gelinay $1 waay. baawrta in automatic aad saga bartay hada muddo 5 maalin amal waday. xasan waxa uu markii dambe abtigiis u soo jeediyay
inuu ku tababarto gaari uu og yahay inuu qarax ku xiran yahay kaasoo abtigiis ku baray habka wadista gaariga waxaana gaarigaas oo noociisu ah filar cadaan ah uu ku tababaranaya 2 usbuuc marka kale asaa gaari loo keenay waa filar tii haddii aan ku bartay tii ay dowladda igu soo qabanayso oo ka gudiga qorxay dowladda igu soo qabanayso macnaha anigu waxa igu jiray gaar la keenay oo filar وانا حريصين هي أنا قرح أنا كهرين أمرنا ليه مش يجين كديب بحوجي ولا شيء قرح كهرين بحوجي لا حيد أنا سي بدو إن مركي أنا قف كوري جدا إن كل حوالي معنا يومي لكن ويا لا وده ولا سيد أحمد شاحينا وده باركس بس كي باشالينا سيد باركس سيد باشاليني مرو معنا أو أسوأ تسيء مرو أنا وضو gaari ani laakiin aktar kuma noqon wali baarse loo wado xasan waxa uu abtigiisu dhiibay gaarigii qarax ahaa inuu u geeyo qof ismiidaamiya balse intuusan gaarin goobtii bartilmaameedka ayuu galay shil sababa inuu qof rayida dhaawacmo waxaana uu wacday abtigiis oo qofkii waxyeeladu ku gaartay ku xaliyay lacag dhan $40 gaariyan wad waxa geenaysa uu yiri iskuuska gudi qof meesh jooga la yiri ku wareeji أنا ما يشوف حدا متى كرم فهمت أقول دبينا غاريان إنكيس أوجي أوكي أنا كده غاريان صوره صوره خارجي ماشي أنا معنا أصعده قدر تقلق قفان كده نوضة مران كده تلك واحد جرسي أبشر أو حنا أنا دلان دنيا نقدر كده سعر ماشي ماذا أو خيالي وكتجي أنا بحق يلو كتجي نيجي وقبت جاري وصار نيجي وسحلي كدي وعي أنا حافظي وسعودة ما صار لابت أنا حناكسن ما صار لابت دنا جاري ينفولي نيجي معك وحلسان هاي نيجي وحير أنا لفتي ضحكوا ما هيستلاك التلفون كسي سمي نيجي واقين كوشة نيجي تلفون كيو معنا أو اسمي أفرد دور وتوري xasan waxa mar kale lagu amray inuu wada gaariga qaraxa balse isagoo aan darawal fiican ahayn awgeed waxa uu galay haddana shil kale balse markan dambe waxa ku daba jiray asirdoonka Soomaaliya oo xogta qaraxa ay kuwaasoo markiiba qabtay xasan balse intii ay soo socdeen kooxda miina baarayaasha ayuu qarxay gaarigii haddana waxa uu dhahnay waa shilka iska ilaali gaari ma hasgi haye markaan u socday markaan meeshii ku dhawaaday motorbike من مجاجان كودا يعني وحوا يعني هذا هلا قف برنامج فرعون سن موت اسكداي ورت شرفه كوش على صح موتباك كجرتو ده فراخ موت اسكدا يعني تانا معناها هاي شيء انا ويلي غاري معناها يعني غاري معناها دربل رسمنا اهين معناها موت بكباك من الله امري ميل كيستا موتدان كودا موتدان كودا اي كدب موتدان كدام فيري قف لها ما جوجي مر waxaa asir ka soo askara mid dhigta markay aragtay askara meesh taagneed bay aragtay markaas ay askartii maana qor ii qabatay qaluu qabtay gaarigii wado istaagay uu yiri waa istaagay min askara ay imaaday ilbaabku furay gaarigii maana furo ku dumiyay soo degay oo dhahay waa soo degay oo dhahay maxaa isku waale bajaada ku dhacaan dad aku dhacay kadib miska carray oo dhahay wax ma hayna aniga waxa waan dhahay bajaadeen waxa waan dhibkooda iska badan ana baar waxaan dhahay bartu ayaan dhahay ani asagoo sheekadii wada hayno meel fadhiisay gaarigii tageen telefoonka gaarigii ay soo qaadeen telefoonka markaa agteeda la keenay telefoonka markaa soo dhacay telefoonkii oo soo qeylinaya maqlay soo dhacay aniga waa fadhiyaa marka telefoonka ma qabatid amadee ما تلفون دقت معنا حوالين جاري أنا أقرأ على جوا مت تلفون قاعد كوي هذا مكساني أنا جاري أنا أقرأ على جوا أكاسو ده نكان إن شاتي هلا سيو ده مرق أمام مرق حوالين على جهر اشترك اللي سي أمام مرق على جهر أمام مرق على جهر كركي إيجو تاين تلفون كي إيجو فيرنا جاري أقرأ xasan oo aan isku diyaarin isagu inuu isqarxiyo balse ha gaarsiiyo qarax qofka loogu tala galay ismiidaaminta waxa uu hadda dareensan yahay in kooxda al-shabaab iyo abtigiisa ay yihiin kuwa aan naxariis lahayn oo xitaa doonaya inay isaga lafahantiisa dilaan
دي برنامجي أو فشل من الأركان أنا بلتش إنه جاري مع آخر حماه أنا مرك حالة دي أشياء كرت مركز عيد شيء كرت ملا أنا مركز دول ده حالة دي شيء كرت وحنا أمين سنة أنا قدام جاري أنا صارنا الله أمين سنة اللي نقرأ لها أنا كان معنا أبتي معنا اسمريهن أبتيها قرحنا xasan waxay sirdoonka Soomaaliya oo isticmaalaya macluumaad gaar ah qabteen 26 bishii 11 ee sanadkii 2018 waxaana sida uu dhagarqabaha laftigiisu qirayo ay sirdoonku feejignaan ka qabeen gaariga uu waday ninkan iyagoo ka fogaaday inay qabtaan telefoonkiisa si ay u xakameeyaan xogta in la qabtay si aysan kooxdu u soo dirtay u qarxin gaariga uu waday balse intii ay ku jireen xiritaanka aaga uu gaarigu yaalay oo ahaa meel suuq ah oo saxmad badan ay ka jirtay kuna amrayeen dadweynuhu inay ka fogaadaan ayuu qarxay gaarigii oo sababay dhimashada 12 qof oo ku jiro dhame xooga Maxamed Muxiidiin iyo hooyadiis Xaawo Xasan Maxamed halka dhaawacuna uu gaarayay 6 qofood waa fariistay telefoonka ama loo keenay ninkii oo iga celi telefoon loo keenay telefoonka ay dhan ama soo aragnay telefoonka markii macna telefoonka waa soo dhacay telefoonka waa dhawaa telefoonka waa telefoonka macna gaaro isaarnaan telefoonka markii waa soo qaaday telefoonka markii wuxuu dhacaa telefoonka hadoo qabto markii wuxuu dhahay ama gaari qaraxa asaani maqlay markaas macna telefoonka hadoo macna oo qabto ama gaari qaraxa telefoonka saas soo haayo oo fiirinayo laga baxay loo soo celiyay laga baxay loo soo celiyay markaan gaari xaq u yeelaa ana taamla ka fadnaa gaari markaa qarax tirada qasaaraha ayaa ka badan lahayd intaas haddii aysan ciidanka nisa ka fogeyn lahayn aaga shacabka maadaama uu suuqaasi ahaa mid aad u mashquul badan halkan waa goobtii lagu qabtay xasan waana halka uu ku qarxay gaariga fildarka ee uu waday kaasoo loogu talagalay in dad shacaba lagu xasuuqo wiilkan dhalinyarada waxa uu joogay goob aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay waxaana uu ka sheekeynayaa sidii ay maalinkaas wax u dhaceen wallaahi maalintii waxaa arkay baawur aniga horta waxa ku jiray hooshayda shaqo waxaa arkay baawur igu soo socdo waa cararay miiskayga ku dhacay kadib markaa soo noqonay cabaar dhan baawurka meesha soo u yeelay anagoo walaacsan naxsan shaqadeena xiranay hal mar waxaa maqalnay hal mar sabaaxan qarax oo aad iyo aad u xoog badan wixii hanti iyo wixii lacag ah meesha ku haystin meesheena u baaba'day anagana naftan ilaahayna uu badbaadiyay meesha bismillaahir rahmaan dad badan oo meesha ku dhaawacmay oo ku dhintay oo ku rafaasan ana ila hadda saahay iyo sikal waaba dareemi waaye wallahi maqaayada waa u jeedaa dhismo labaad inay gashay qaabkii hore saama ahayn waa laga bedelay cabitaankii saa miiska saameen miiska dawo burburay marka rafaad aad iyo aad xoogan badan aan soo maray xasan iyo abtigiis waxay ahaayeen kuwa isticmaala balwadaha jaadka shiishada iyo taabuuga mana aysan tukan jirin salaad waxayna ahaayeen kuwa u tababaran falalka argagixisanimo ee al-shabaab balwada isticmaalin qaad iyo waxaan intifaax استعمل أبتي halkan waa gurigii ay deganaayeen xasan iyo abtigiis gurigan uma ekeen xarun ay argagixisa leedahay waxaana isugu imaan jiray dhalinyaro balwadu ay dilootay kuwaas oo halka ku qayili jiray kuna isticmaali jiray noocyada kala duwan ee balwada ujeedaduna waxay ahayd inaan la garan gurigani inuu yahay guri ay isticmaalayaan argagixisada al-shabaab meel suuq imaado jaad lagu cuno horta dhalinyaro aday qayisho jaad ay cunto horta borta asagat wixiis asagat fadal lagu kulmaa ana qayb diray
مقصد نقول بوحيس أساق قرته أو كلية معنا حارة بس إن يطلب شالو نقصد وحيس أساق لي ماذا مقصد معنا قف عقدة مجرد إلا قف بوديني وما أنت ما هي ساحة إن هذا كون قبنا عمل نقول لهموي قف معنا جار قف جاد وهذا مركز وحب الوجه لك جاد من الوجهين حسن وحول ولا كما هي حجم قولك هي دنبك وقلاء وكل أي مواطنين صوماليات دولة قانا أوجرا دولة مركز إن كليبو دولة دام دور تهليد دايو إلما أنا رتني دينيس لكن هي عدالة خبطه أو نوع معنا أو مكاس نحرس لي فيرنا أنجار عنا مرة كل دولة نحرس هذا مش هيكري sirdoonka Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa Xasan waxayna soo qabteen horjoogihii shabakadaasi oo ahaa Xasan Abtigiis kaasoo isna la maray habka cadaaladda Xasan waxaana lagu magacaabaa horjoogahan Sayid Cali Aadan Nuur Steamboy Sayid Cali waxa uu lahaa xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen darawalnimo makaanig iyo fuundi kuwaas oo ku qarin jiray xirfadiisa rasmiga ah ee shabaabnimo أنتي مركب رفندو مرنا هواي دربل واي موتول واي ساسوس مكانيك نوع الله يا رسول الشهادة الروح قرش الله ترى ظهورا الإسلام ما تريد الله يا رسول الشهادة الروح قرش الله ترى ظهورا الإسلام ما حسن يا سيد علي waxay mareen habka cadaaladda ee garsoorka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana loo fariisay maxkamadooyintooda 5 Sebtembar ee sanadkan iyadoo la dhageystay eedda xafiiska xeeraalinta maxkamadda iyo dooda qareenada difaacayay labada eedaysane ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin ayaa mid u kala dhigaya eedda loo haysta raggan iyo cadeymaha ay hayaan waxayna soo bandhigeen xafiiska xeeraalinta amarag muujina ay ka mid yihiin taarikada furihii gaariga iyo marqaatiyaal ka marag furay garsoorka ciidanka hortiisa mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka eedeysanaha koobaad wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay yani nuqdo muhiim ku jirta kamid aheeday in uu soo wacay Sayid Cali markii gacanta lagu dhigay teleefankiisa laama amniga ay hayeen inuu soo wacay si uu xaqiijiyo goobta qaraxa gaariga inuu geey markuu ogaaday Sayid Cali in uusan teleefan ka jawaabin Xasan gacantana lagu dhigay automatically gaariga uu qaray waxay cadeynaysaa Sayid Cali inuu yahay qofka maamulaya ee hagaya gaarigaas ee qarax mas'uulka ah gacanta ku haya awoodda uu ku qarxay iskala isaga ah mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh waxyaabaha macni qiraalka oo mataqaanaa bixiyay eedeysanaha koobaad cadeynta oo bixiyay mataqaanaa markaatiga ninka dhibanaha gaariga ku dhifteen iyo xiriirka ka dhaxeeyay Sayid Cali iyo Xasan waxay cadeynaysaa in Sayid Cali uu ahay amiirka cidda iska leed hagista awoodda mataqaanaa gaarigaas inuu qarxay dhibaatadaas geystay cidda ku awoodda badneed ee amarka laga qaadanayo amarka iska leeyahay inuu waa Sayid Cali mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka uu bixiyay eedeysanaha koobaad waxa kamid ahaa in uu maalmo ku baranayay wadista gaadiidka ee mataqaanaa area tabeelash Ibrahim kidibna ay tageen meel geersha kana soo qaadeen gaarigan fiildarka asaga lagu soo qabtay uuna u sheegay Sayid Cali gaari wadowga inta ugu dhiman inuu gaarigan ugu dhameystiray Sayid Cali inuu yahay qof qaraxyada asaga farsameeya awoodana xilligu asagu uu talagal inuu qarxiyo gaarigaas isagoo qarax ku jiro intaas cabaysan ayuu isbuuc in gaariisu magaalada ku dhaxayo ku barayo mataqaanaa wadista gaariga isagoo og oo waliba u sheegay in gaarigan qaraxa ku jiro halkuu ku jira ka soo saar ee markuu albaabada u fur arki waayay qof arki karta ma jirtay kaal ana ku baray qaraxa ku jira gaariga yani kubaysan oo buuxa ayuu wuxuu baray yani oo eedeysanaha koobaad inuu darawal noqdo gaarigan meeshii geelira oo geey karo baray inta waxay tilmaamaysaa farsamada qaraxa oo ku qarxo waxa iska lahay Sayid Cali sidoo kale qareenadii difaacaya eedeysanaha ayaa iyaguna soo bandhigay doodooda ay ku difaacayaan ragga ay wakiilka ka yihiin waxaan codsanaynaa in nimanka
laga daayo xabsiga labada eedeysanaha labaad eedeysanaha saddexaad xasan cali macalin bare maadaama ay askartii qabatay ninkii baabuurka waday ninkaas u ahaa baabuurka qaraxa uu ka yimid oo loo malaynaya qaraxa in baabuurka uu ka imaaday waa loo malaynaya maalin baabuurka furaya ayaa qaraxay maasaa qaraxa riday lama yaqaano ilaahay anaga og ninkaas waxaan codsanaynaa in loo naxariisto oo maxkamaddu u fiiriso faalaha dembiga fududeeyo al-shabaab waxay la yimaadeen xeelad cusub oo ay maleeshiyaadkooda ula baxayaan magacyo aan ahayn abuu iyo magacyadii carbeed ay la bixi jireen waxayna samaysteen magacyo muujinaya anshaxuma iyo balwad iyagoo isticmaalaya dhallinyaro ay diloodeen balwadaha noocyadooda kala duwan xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada cabdulaahi kame ayaa soo bandhigay macluumaad arrintaasi la xiriirta eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen joy steam boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkuliistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay ciyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in maxkamaddu xiran tahay dibna la isugu soo laaban doono dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor محكمة ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen sagaalkii bishan ayay ugu dambeyn maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya go'aan ka gaartay eedda loo haysto eedeysanayaashan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal kow xasan cali macalin barre xasan boy 21 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir labo sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir saddex muxudiin maxamed axmed khaliif cj 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedeysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018 dhigay suuqa Kaawagoday ee degmada wada jir gaari noociisu ahaa fil dhar cadaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedeysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen
isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa Kaawagoday ee degmada Wadajir. Eedaysanaha labaad Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada Muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsameyntooda. sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyay in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyay ku biirista kooxda Al-Shabaab qaybteeda qaraxida soo gelisa magaalada Muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa Kaawagoday 26 bishii 11aad 2018. eedaysanaha saddexaad Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu hay'adaha baarista u sheegay magac been ah. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa Kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawagoday isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawagoday. markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed. sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintida kale ah koow cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa Kaawagoday degmada Wadajir 26 bishii 11aad 2018 saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa afar furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan Cali Macalin Barre. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in koow Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy labo Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah labo dambiile shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy xabsi daa'in. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq. Hey,
guud ahaan barnaamijkii gungaar waa naga inta aan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa aniga maxamed cabdi caraye iyo cabdulqaadir ciise oo idin leh nabaadiino.